قصة اللبادين قادين وحي تاهي دحل بخيلنimo dhaxal ah bakhilnimo dhaxal tooya ah bakhilnimo dhaxal tooya ah hanti waa la iska dhaxlaa cudurro qaarna waa la iska dhaxlaa laakiin bakhilnimo la iska dhaxal lama sheegin waxa la sheegaa nin ayaa wuxuu u soo martiyay nin saaxiib isaga la ah martiba inoo timid aad u qadarin badan agtanadii ku weyn wiilkayow orod oo bax magaalada iyo suuqa tag hilib inooga soo iibi wuxuu yiri orod oo bax hilib inooga soo iibi wiilkii yaraa ayuu wuxuu u diray inuu hilib u soo iibiyo martidii iyo aabihiiba wuxuu ku yiri orod oo tag nus kiilo hilib ah oo aad u wanaagsan inoo soo iibi wiilkii yaraa wuu tagay markuu muddo soo maqnaa waxba ma uusan soo iibinin wuxuu u soo laabtay gurigii aabihii baa wuxuu ku yiri hilibkii aan kuu diray aaway wiilkii yaraa wuxuu yiri aabbo waxaan u tagay ninkii iibinaya hilibka kawaanlihi waxaan ku iri waxaad nasiisaa hilib wixii wanaagsan agtaada yaala hilib cad oo jiiro qurux badan iga sii ninkii kawaanlaha ahaa wuxuu yiri waxaan ku siinayaa hilib sida farmaajada u cad baashan jubniga carabta u yaqaanaan farmaajo la yiraahdo ee rootiga lagu cuno hilib noocaasi u cad baan ku siinayaa waxaan isiri buu yiri aduuba wax cad ku siinaya hilib cad ku siinaya sida oo farmaajada oo kale aan dukaanlaha u tago farmaajada ka iibsado aduuba isiinaya hilib sida farmaajada u cad dukaanlaha intaan u tago farmaajada lafteeda maan iibsado waan baxay buu yiri dukaanlihii baan u tagay waxaan ku iri nin yahow farmaajo nooca aad haysamida ugu wanaagsan isii wuxuu yiri buu yiri waxaan ku siinayaa farmaajo sida bariiska oo kale farmaajo sida bariiska oo kale ayaan ku siinayaa waxaan niyada iska iri buu yiri haddii uu isiinaya farmaajo sida bariiska oo kale maalintan dukaanka hebel taga ka iibiye bariis dukaankii hebel baan tagay waxaan ku iri warniyahow bariis wanaagsan isii wuxuu igu yiri buu yiri waxaan ku siinayaa bariis sida biyaha cad oo kale ah biyaha saafiga oo kale waxaan niyada iska iri buu yiri aduuba bariis sida biyaha u cad isiinayo guriganagiiba biyo aad u qurux badan oo cadaan badan oo nadiif ayaa yaalo marka aabbo waan soo laabtay waxna ma aanan soo ii cadaan la sheegan guriga way yaalaan aabihii wuxuu yiri alla maxaad wiil caqli badan tahay bakhilnimadii buu ka dhaxlay lacagtii baa soo laabatay laakiin martidii lama eegayo wuxuu yiri alla maxaad wiil caqli badan tahay laakiin hal mid baad ilowday buu yiri wiilkayow aabbo waa maxay buu yiri waxaan ilooway wuxuu yiri intaad marba dukaan tagtagaysay kabihii ayaad iska soo dhamaysay socodka aad socotay kabaha ka soo dhamaaday wiilkeena wuxuu yiri aabbo maya saadi moodamaan caqli waan leeyahay kabaha aan soo dhameeyay kabahayga ma ahan ninkii martida noo ahaa kabihiisii ayaan xirtay halkaasi waxa uu ku waayay ninka martida ahaa waxa uu ku waayay kabihiisii oo halka lagu soo dhameeyay iyo marti sooridii uu sugayay intaaba marka waxa la yiraahdaa dhaxaltooyo bakhayltinimo oo dhaxaltooyo ah sida ayaa qisada cinwaankeeda u yahay inta ayaan insha Allah ta'ala labadii qisa caawa aan idin kugu tala galay